bisha 2022 waxaana soo gaaray xukun ay gaadhay maxkamadda degmada gobolka Saaxil taas oo lagu qaaday niman ka bay'ad mushtarinayay xawayaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland saldhigga Berbera uu ka howlgal uu sameeyay hadda koor ku soo qabtay laba nin oo Yamaniya gaari iyo xawayaan ka nooca shabeelka harbacadka iyo laba nin oo baxsaday taas oo aan maxkamadda sidii sharcigu yahay maxkamadda u gudbinay waxa aad iyo aad noo farxad gelinaysa xukunka ay maxkamaddu riday oo ay waafajisay sharciga dadkii sida sharci darrada uga bay'ad mushtarinayay xawayaankeenii ama kaydkeenii dabiiciga ah ee dalkeena iyagoo iska indhatiray sharciga waddanka u yaala ciidanka ilaalada xeebahana wuxuu u xil saaran yahay inuu ilaaliyo wixii sharci darro ku soo gelaya baddeena wixii sharci darro kaga dhoofinaya wax kootarabaan dad xawayaan iyo wax kasta oo sharciga Soomaaliland opposite ku ah waa waajib muqaddis oo ciidanku leeyahay waajibkayga baan gudanay waxaan aad ugu faraxsanahay hay'adaha sharciga oo waafajiyay sharcigii maantana lagu soo wareejiyay laashkii lagu soo qabtay howlgalkaas oo dawladdu la wareegtayna lagu soo wareejiyay runtii waxa aad soo qabato ama howlgalka aad qabato ee waxa ku soo qabato dalkaaga ugu shaqeyso marka sharciga la waafajiyo dhiirigelin bay noqonaysaa runtii laashkaasna wuxuu ka qayb qaadan doonaa howlgallada dambe ee ciidanku uu samayn doono aad iyo aad bay noo farxad gelinaysaa waxaan u mahad celinayaa maxkamadda gobolka Saaxil xeer ilaalinta sida ay u waafajiyeen sharciga dadkaas dambiilayaasha ahaa waxaan kaloo mahad celinayaa hadda ila jooga wasaaradii deegaanka oo iyaduna runtii markii howlgalkaasi dhacay waajibkeeda ka gudatay oo saacad xasaasi oo 12 habeen inta Hargeysa ka yimaadeen Berbera noogu yimi oo nagala wareegay runtii aad iyo aad bay u shaqeynayaan waan iyagana u mahad celinayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa qaranka shaqadaan u haynana waa waajib sharciga in la waafajiyana waa waajib ciddii fulisayna waa mahadsantahay